wasiirka amniga gudaha iyo maamulka qaran Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in si qaldan loo fahmay gaar ahaan hadal uu maalmo ka hor sheegay. hadalkaasi ayaa wuxuu ahaa in dawladda ay la kaashanayso xubnaha odayaasha ah ee ka soo jeeda Soomaaliya si dib loogu soo furto jiifaf horaantii sanadkan laga afduubay magaalada Mandera inkastoo markii dambe dib loo helay. Rigathi Gachagua ayaa markii uu ku sugnaa dalka Mareykanka wuxuu sheegay oo uu ku eedeeyayba wasiirka amniga gudaha in uu la shaqeeyo xubno ka tirsan Al-Shabaab markii hadalkaasi uu yiri, balse Murkomen wuxuu sheegay in hadalkaasi si qaldan loo fasiray. taasi bedelkeedana wuxuu sheegay in odayaasha ismaamulka Mandera ay iyagu dhaxda u xirteen sidii ay ula hadli lahaayeen odayaasha Soomaaliya si dib loogu soo fasaxo jiifafkaasi ilaa iyo 5 aha. Remember that the communities in Kenya are the same communities in Somalia. Maybe that may be of great help. The elders in Kenya took the initiative, you know, and spoke to their elders in the other in Somalia and tried to tell them that to help them pursue the criminals who went with the chiefs. And I'm glad that the elders, because it's one clan, the clan in Kenya is the same clan in Somalia. I'm glad that the elders in Somalia were able to intervene and make sure that using their local mechanisms in their own country helped their colleagues from the part of Kenya without the interference of the government of Kenya.